saddexda May maanta oo kale waxaa loo gooniyay saxafiyiinta caalamka waxaana la soo bandhigaa dhibaatooyinka ay la kulmaan sida dilalka, dhaawaca, xariga, cagjuglaynta iyo waliba waxyeelada kale ee loo geysto qalabka ay ku howlgalaan. Ujeedka maalintan ayaa ah in lagu iftiimiyo caqabadaha ku horgudban saxafiyiinta iyo goobaha ay ka howlgalaan si bulshada ay u siiyaan macluumaadka caalamka xiligaasi ka taagan iyo waliba dhacdooyinka soo kordha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha lagu dhibaateeyo wariyaasha iyagoona aan helin xuquuqdii ay lahaayeen. Madaxda warbaahinta, saxafiyiin aad u far badan iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta Muqdisho ka dhigay maalintan caalamiga ah. Qaar ka mid ah madaxda warbaahinta iyo waliba ururada u dooda xuquuqda wariyaasha ayaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay ayagoona sheegay in dawladda ay caburin ay ku hayso warbaahinta madaxa banaan. Saxafiyiinta Soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayaan haddii ahaan lahayd handadaad, haddii ahaan lahayd xarig, haddii ahaan lahayd in xogta si wanaagsan ay u helin. Saxaafadda Soomaaliya waxay isku bedelaysaa in lagu shubto oo qof kasta mas'uul ah makrofonkii la hordhigaa wuxuu raba ku sheego haddii wax laga weydiiyana uu diido. Micnaha saxaafaddu sidaas maahan. saxaafaddu waa dabagal hubin iyo in dadka xog hubsan loo soo gudbiyo. marka mas'uuliyiinta waddanka maamulayso saxaafadda waa xor dastuurka cutubkiisa labaad xuquuqda muwaadinku ka hadlaya xuriyatul qowlka hadalku ka hadlaya. markii la fiiriyo korarka sanadihii hore dhibaatada wariyaasha ay la kulmeen sanadkan waa ay libajibaarmatay taasina waxay ku tusaysaa in wariyaashu ay weeraro joogtaa la kulmayaan oo xarig aan sharci ahayn handadaad iyo cagajuglayn iyo wariyaal la dilay iyaga oo shaqadoodii ku guda jira. Xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SGS Cabdalla Axmed Muumin ayaa waxa uu sheegay in wariyaal far badan la xiray kuwa kale isoo istaag shaqadooda lagu sameeyay iyagoo ku guda jira waajibaadkooda shaqo. annagoo ah hay'adaha warbaahinta madaxa bannaan iyo ururada saxaafadda waxaan aad uga walaacsanahay handadaadaha weerarada iyo cagajuglaynta ka dhanka ah warfidyeenada iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. sanadkii tagay 2019 wuxuu ahaa warbaahinta iyo warfidyeenka wuxuu ahaa mid cabsi badan. waxaa weeraro bartilmaameedsi ah lagu beegsaday 81 suxufi 53 xabsiga ayaa loo taxaabay 2 suxufina waa la dilay 12 suxufi kale ayaa dalka ka carartay cabsi ay ka qabaan handadaado loo jeedinayo darteed. in ka badan 15 goorna waxaa laga sameeyay isturtaag lagu sameeyay xarumaha warbaahinta iyo suxufiyiinta iyagoo soo tabinaya warar ay danaynaysa saxaafadda iyo bulshada. 7 xarun warbaahineed ayaa sharci darro ah loo xiray oo mid ka mid ah weli ay xiran tahay. dhammaan qodobadaas aan soo sheegay waxay ka mid yihiin xadgudubyada ka dhanka xuquuqda dastuuriga ah oo ay ahayd in muwaadiniinta Soomaaliyeed oo saxaafaddu ay ka mid tahay ay xaq u yeeshaan. sanadkan kaliya 2020 wariye Cabdiwali Xasan Cali online ayaa lagu dilay degmada Afgooye cid loo soo qabtayna ma jirto. 19 warfidiyeen ayaa xabsiga loo taxaabay oo qaarkood laga qaatay agabkoodii lana tirtiray shaqooyinka ay soo qabteen. 4 suxufi waa la garaacay, 2 warbaahin waa la mamnuucay iyo horjoogsi lagu sameeyay suxufiyiin kala duwan xaq ay u lahaayeen inay gaaraan xogta oo ay bulshada soo tabiyaan kuwaas oo la bartilmaameedsaday.